ma isku aragtay dabeecadahan markaa intri qaadatid isla markii daqiiqadii 10 jeer in ka badan intriga ma ku soo laabataa ma eegtaa ma fiirisaa maskaxdaada ma isweydiisaa armay intriga qaadata ama qalad aha ama isalka kaaga dhaca ama lagugu soo laabtaa sidoo kale isalkaaga ma durjisaa buluuga markuu kuu bilowdo isla markii ma xirtaa haddii dabeecadahan aad leedahay waxaad ka liidataa waxa loo yaqaano trading plan si taas aysan mar dambe kuugu dhicin waxaan kula wadaagi doonaa dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay inaad samaysid haddii aad samaysid win rate-kaaga uu noqonayo high probability qodobka koowaad waa inaad taqaanid entry iyo exit criteria suuqa meesha aad ka galaysid xilliga aad galaysid iyo waqtiga aad ka bixaysid positionka aad ugu bixaysid inaad ogaatid qodobka labaad risk management-kaaga inaad ogtahay inta percentage aad rabtid inaad khasaarisid inaad ogaatid oo trade-kaas aad ku khasaarinaysid iyada 1% oo 2% ama 0.5 it depends intuu raba ha ahaado sidoo kale waa inaad ogtahay position lot size-ka aad ku galaysid kadib intaas haddii aad iska dhistid ay ku qoran tahay aadna fahansan tahay entry kasta aad qaadatid inta khasaare percentage aad ogashahay iyo inta aad faa'iidaysid haddii aad SL iyo TB aad ku xirato aad faraha ka qaadid waxaan kuu ballan qaadaa 100% win rate-kaaga inuu noqonayo high waxaa kaa yaraanaya overtrade-ka waxaa kaa yaraanaya greedinimada waxaa kaa yaraanayso emotionalkaaga inuu high aha entry-ga qaado faraha ka qaad sababtoo waad ogtahay inta aad khasaaraysid sidoo kale waxaad ogtahay inta aad faa'iidaysid haddii intaan aad samaysid oo ay kugu soo laabato dabeecadahan suuqa iskaga bax